waxaan jeclahay inaan halkan ka sheego maadaama shahaadada iyo imtixaanku ay yihiin howl ay qabanayso wasaaradda waxbarashada in laga bilaabo maanta aanay wasaaradda waxbarashadu wax kharash ka qaadaynin shahaadada ardayda dugsiga sare. meeshaas waxaan rabaa inaad marka aad u fiirisaan wasaaradda waxbarashadu wax kharasha oo ay ka qaadaysa malaha, laakiin waxaa jirto lacag ay qaadi jirtay wasaaradda maaliyadda. lacagtii wasaaradda maaliyadda ay qaadi jirtay wasaaradda maaliyadda sideeda ayay u qaadaysaa. waxaana ogahay inay markii hore ahayd lacag $5 ah, taas unbaa laga qaadaya, laakiin wasaaradda waxbarashada wax lacag ah oo ay ka qaadayso shahaadada dugsiga sare haba yaraatee ma jirto. sidoo kale waxaa reeban in ama waalidka ama ardayga ama qofka dalbanaya shahaadada wax la yiraahdo hawl fududays uu lacag ku bixiyo, ii dadeji iyo ii hoosgali iyo waxaas umana baahnid lagaamana yeelayo. marka taasaan doonayaa in aad idinkuna maskaxda ku haysaan. guud ahaan waxa aan jeclahay inaan la hadlo waalidiinta Soomaaliyeed, inaan la hadlo dadweynaha Soomaaliyeed in dareenkooda ku saabsan waxbarashada carruurtooda ay aad iyo aad u kordhiyaan, ka warhayntooda ay aad u kordhiyaan, inay iska daayaan oo iska iloobaan laalaabka, inay iska iloobaan. ilmahaaga waqtiga ha ka luminin. iskoolka ha la ii bootiyo, systemka ha la ii hoosgeliyo, inta ha la ii sameeyo. haddii ay kuu suura gasho oy kuugu suura gasho maanta duruuf aanan aniga hadda fahmayn, hadday kuugu suura gasho waxaa laga yaabaa 10 sano kadib in lagu soo qabto. ardayga la bootiyey, midka imtixaanka been abuurka ee loo sameeyey, midka shahaadada been abuurka qaatay, waxaa laga yaabaa 10 sano kadib in dhammaan wax alla wuxuu ku kasbaday oo dhan laga wada xayuubiyo. maxaa yeelay been abuur ayuu soo sameeyey sanadkii 2022 in la yiraahdo. marka taas baan aad iyo aad u rajaynayaa. waxaa naga go'an oo dadweynaha Soomaaliyeed u ballan qaadaynaa in si hufan loogu shaqeeyo. iyagana waxaan ka rajaynayaa gacan iyo xilkasnimo iyo garasho. waxaa ii hartay marka ayaan dhawad ogeydeen imtixaanaadka arday ayaanu hakinin natiijadooda in la soo dhajiyo. maxaa yeelay nidaamka ayay ku xadgudbeen. sidoo kale dadaalka intaa leeg markaan samayno oo wasaaraddii iyo howlwadeenadeedii iyo dadkeedii ay sidaa u shaqeeyaan oo systemkii iyo nidaamkii kulli laga dhigay nidaam aan la isku xadgudbi karin, ciddii xadgudub ku samayso shaqada iyo waxqabadkeeda sharcigaana la tigsanaya. marka ayaan marna loo malaynin qof intuu rabsho ka sameeyo goobta shaqada ama uu isku dayo dan asaga uu leeyahay in uu buuq iyo ku furo, inuu haddana iska nabadgelaayo oo jidkiisa iska maraayo ama hawl loogu fududaynayo inaanu marin. barashada nidaamka iyo barashada kala dambeynta iyo barashada ku dhaqanka sharciga waa qayb ka mid ah waxbarashada aan doonayna dadkeena inaan barno.